wasiirka madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland Xirsi Xaaji Cali Xasan iyo wasiirka arrimaha dibadda Maxamed Cabdullaahi Cumar ayaa sheegay in dhammaan hawlihii ay halkaasi u joogeen ay soo gabagaboobeen wafdigan oo tan iyo intii ay wadanka Kenya joogeen kulamo istaba jooga la galayay mas'uuliyiinta ugu sarsaraysa wadanka Kenya oo ay kamid ahaayeen ra'iisul wasaaraha wadanka Kenya Raila Amolo Odinga iyo madax kaleba ayaa dhammaanba ay u soo gabagaboobeen hawlihii halkaasi ay u joogeen wasiirka madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland Xirsi Xaaji Cali Xasan oo saxaafadda kula kulmay hoteelka Silver Spring ee magaalada Nairobi ayaa sheegay in maalinta beritoolaha ay ku laaban doonaan caasimadda wadanka Soomaaliland ee Hargeysa isagoo sheegay in ay halkan uga soo dhamaadeen hawlahoodii isla markaasina wixii warbixin ah ee ay halkan kala kulmeen ay saxaafadda ku siin doonaan riboodka caasimadda Hargeysa halkan hawshii aan u soconay safarkan Kenya oo nooga dhamaaday kulamadii aan lahayna waa si wacan bay noogu qabsoomeen safar waxaan u siinay Hargeysa iyo wadankii insha Allah taala wixii warbixin waxaan ku sameyn doonaa markaan Hargeysa tagno iyo wadankii insha Allah taala aad iyo aad baa u mahadsantiin salaamu calaykum raxmatullaah sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda Maxamed Cabdullaahi Cumar oo kulankaasi goobjoog ka ahaa dhawaan socdaal kaga yimi wadanka Turkiga oo kaga soo qayb galay shirkii halkaasi ka socday ayaa isaguna sheegay inuu wixii warbixin ah uu kala soo kulmay shirkaasi iyo magaalada Nairobi ba oo sidoo kale ku dhiibi doono caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdullaahi Cabdi Cali TV-ga qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Nairobi.